جامعة إفريقيا العالمية وجامعة وين أو كتالا ودنك السودان كالين وين كله وحبرشة قارة أفريقيا وحنا ركتك كدواس سديتن يلحتوا دود جامعة أفريقيا أو كوبان إنك بدل لباتن كلية دي حرم علم البارنات أي واحد كمية كلية عافماتك أفكي الكها كلية عافماتك أفكي الكها يا لفوري برتمي سنة كيلا بدي يكون يلحدي waxaana dufcadii u soo horeysay loo soo aqbalay isla sanadkaasi ilaa haatan wax dhameeyay ku dhawaad 7 kooxood sababihii loo furay kulliyadda ayaa ay ugu horeysay ka qabtirka bulshada caafimaadka afkayeelkaha iyo sidii loo heli lahaa bulsho ka caafimaad qabta cudurrada aafeeyay jirka bini'aadamka gaar ahaan afkayeelkaha la jaanqaadida aqoonta guud ee fidaysa kuna dhisan xirfadda iyo tiknoolajiyadda iyo horumarinta caafimaad ee qaaradda Afrika waana ta keentay in badi ardayda wax ka barata kulliyadda caafimaadka afkayeelkaha ay ka kala yimaadeen dowladaha Afrika kulliyadda oo u shaqeysa fasal ah ayaa isla markiiba la jaan qaaday jaamacadda Afrika waxaana la qorsheeyay in arday ka baxa ka dhismo dhinacyada aqoonta iyo dacwadda taasi oo ah siyaasadda ay la gaar ka tahay jaamacadda Afrika kulliyadda ayaa bixisa heerarka kala duwan ee waxbarashada sida heerka koowaad oo ka kooban 10 semester ardaygii dhamaystirtana loo ogolaado shahaadada sidoo kale heerka labaad iyo heerka saddexaad oo ay ka bixiso qaybta qalliinka afka iyo ilkaha darajada heerka koowaad ee ay bixiso kulliyaddu ayaa ka kooban 10 semester una dhigata 5 sano iyadoo sanadkii uu ka kooban yahay 2 semester heerka koowaad ayaa ka kooban 3 qaybood kuwaas oo kor u qaaday heerka aqooneed iyo hanaanka xirfadeed ee ardaygu baranayo qaybta koowaad ayuu ardaygu ku baranaya rakibaadda qalliinka guud ee jirka oo wasaaradda qaybta madaxa qoorta iyo laabta barashada shaqooyinka iyo isbedelada kiimikaad ee ka dhaxdhaca jirka bini'aadamka isku xidhnaanta jirka bini'aadamka iyo ka hortagga haddii qaybta xumaato sidii qaybta kale loo badbaadin lahaa sidoo kale wuxuu ardaygu baranayaa garashada mushkiladaha caafimaad ee ku dhaca qaybta qoyska iyo bulshada iyo ku suntanaanta akhlaaqda wanaagsan ee xirfadda caafimaadku u baahan tahay qaybta labaad ayuu ardaygu ku qaadanayaa garashada shaqada guud ee jirka iyo daaweyntiisa halka uu qaybta saddexaadna ku qaadanayo la dhaqanka cudurrada kala duwan iyo daaweynta aafooyinka haleelay afka iyo ilkaha xadidaadda tallaabooyinka caafimaad ee loo marayo daaweynta ilkaha hagaajinta iyo toosinta daaweynta cudurrada ciridka iyo in ardayga loo tababaro sidii ugu helanaan lahaa gargaarka degdega ah haddaba ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata kulliyaddan ayaa ah kuwa ku suntan dadaal iyo karti ay dheer yihiin ardayda kale ee jaamacadda magacayga waxa la dhahaa Saciid Warsame Cumar waxaan kamid ahay ardayda ka dhigata jaamacadda Afriqiya Alcaalamiya kulliyadda afka ilkaha soo loo yaqaan Soomaalihaan ama kulliyadda dibbi film wal asnaan hadda waxaan ku suganahay qaybta ciyaadada ama loo yaqaan camaliga oo ka shaqeyno waxaan ku jiraa sanadkii shanaad hadda waxaan joognaa waa qayb tarkiibaad mutaharrika ama qofka ma adarta bila ilkaha ilka loo sameynayo ilkahan isaad arkaysaan hadda waxay ka kooban yihiin qofkan waa ciridka afka qofka ilkaha dana ka bilowno yaani sawirkan wuxuu tusinayaa afkii qofka bukay qofkan yaani marka saas waa qof hal ila kuma yaal waxa la rabaa in loo sameeyo ilka tarkiibaad mutaharrika yaani waa gashanaya waana iska saaraya magacaygu waa Farxaan Abi Xasan waxaan ka shaqeeyaa ciyaadadan oo ah ciyaada raacsan jaamacadda Afriqiya Alcaalamiya kulliyadda afka iyo ilkaha kulliyaddan aan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan u salaamayaa qanaadka caalamiga TV-gana soo booqday kulliyaddan qaybo badan leh ay ka mid yihiin qaybtan hadda aan ka shaqeynayno oo ah qaybta ilka samaynta amba gelinta qofka ilkaha aan lahayn oo qudheedo qayb oo qaybsanta qaybta caruurta oo iyaduna qaybaheeda leh qaybta buuxinta ilkaha oo iyaduna laba qaybood si kala qaybsanta qaybta Allahumma salli ala Muhammad nadaafada amba nadiifinta ilkaha iyo qaybo kale oo ka mid yihiin beeritaanka ilkaha iyo wax la mid ah waxaan ka shaqeynayaa hadda patientkan qofkan ninkan weyn odagaad halkan ka arkaysaan waxa ka maqan ilkihiisa dhowr qaybood xagga hoose ilka ma laha xagga sarana qayb kamid ah ka maqan
waxaan ka shaqeynaa markaas sidii qaabkaan ilkaha ugu gelin lahayn wuxuu maraa dhowr marxaladood ilaa 5 week 5 kulan buu qaataa inta loo soo sameynayo mar halkana laga qaada cabirka kadibna waxa la geeyaa lab amba meel kale oo lagu sameeyo ugu dambeyn ilkahan oo u eeg ilkihii uu qofku gashan lahaa baa loo geliyaa iyadoo loo eegayo markasta size-ka ay leeyihiin iyo midabka ay ilkuhu leeyihiin shirkad baa sidoo soo samaysa iyagoo markaas size-kii kala duwan la helaa guud ahaan kulliyaddu qaybahaas ay u shaqeysaa ardaydan oo ka kala yimi dhammaan deegaanada kala duwan ee Soomaalida ayaa hamigooda koowaad yahay sidii ay u horumarin lahaayeen deegaanada ay ka yimaadeen waxaanay ka midaysan yihiin sidii bulshada ay uga faa'iideyn lahaayeen aqoonta ay barteen sida dadka tacliinta ka faalooda ay sheegeen waxa la rajaynayaa in mustaqbalka dhow jaamacadda Afrika ay noqon doonto hoggaanka waxbarashada Afrika hoy iyo hadhna u noqon doonto ardaydan ka kala yimid qaaradda Afrika